guri cusub, nolol cusub. waxyaabo badan baa isbeddel ku socda. aragtiyo, dhawaaqyo, caraf cusub, cunto qariib kugu ah, xeerar ad adag ee dhanka nolosha. haddana waxaa jira hal shay oo weli sidiisa ah: jacaylka aad reerkaaga u qabto. hooyooyin, wiilal, xaasas, walaalo, waxaad rabtaa in dhammaantooda ay noqdaan kuwo faraxsan oo fayaqab ah. waan ku caawin karnaa. dunidan cusub aan kula hagno. si wada jir ayaan ku dhisi karnaa qoysas fayo qaba iyo adiga oo fayo qaba. cuntada dheef-qaaditaanka waxay ballan qaadaan tamar badan, xasuus wanaagsan, karin iyo caafimaad. balse ahdiqaadyadooda ma runbaa? ma wax la isku aamini karo oo caafimaadaysan baa? cuntada dheef-qaaditaanka waxaa ka mid a faytamiinada iyo macdanta, caleenta, waxyaabo dhir la xiriira iyo waxyaabo kale. waxaa lagu keenaa qaab kaniini, boolbaro, cabitaano iyo wax tamarta loo cuno. cuntada kabka waxaa dhici karta inay kaa caawiyaan inaad hesho nafaqooyin asaasi haddii aadan cunayn cuntooyin caafimaadaysan oo dhowr nooc ka kooban. tusaale ahaan, kaalsiyamka iyo fitamiinka D-da oo lafaha xoogeeya. maadada folic acid waxay hoos u dhigtaa halista cilladaha uurka qaar. maadada loo yaqaan omega 3 ee aasidka baruurta oo laga helo saliidda kalluunka waxaa dhici karta inay wax u tarto qofka wadna xanuunka qaba. laakiin cuntada kabka ah marnaba ma ahan inay la wareegto booskii cuntooyinkaaga uu jirkaaga u baahnaa si caafimaadaysan ay ugu koraan. mar walba takhtarkaaga kala hadal ka hor inta aadan bilaabin qaadashada cuntooyinka kabka. halis ayay noqon karaan. intooda badan waxaa ku jira walxo keeni kara waxyeelo dambe, gaar ahaan haddii aad isticmaasho halkii aad ka qaadan lahayd daawooyinka laguu qoray, ama haddii aad isticmaasho walxo kab ah oo isku jira. waxay kor u qaadi karaan halistaada dhiigbax, daawooyinkaaga inay wax u geystaan, ama sidoo kale in daawooyinkaaga ay waxba kuu tari waayaan. tusaale ahaan, qaadashada faytamiinka A oo badan waxay kuu keeni karaan madax xanuun, waxyeelo dhanka beerka iyo waxyeelo dhalmo. qaadashada iron tiro badan waxay kuu keeni karaan lalabo ama matag. cuntooyinka badankood waxaa lagu soo kabaa sidoo kale. sidaa awgeed waxaa laga yaabaa inaad cunto in ka badan intaad u maleynaysay. waxaad ka fiirin kartaa qoraalka cuntada aad cunto lagu soo qoro si aad u aragto inta kabee ku jirta. qoraalka ku qoran waa inuu ku qornaadaa inta lagu taliyo ee cunto ama recommended dietary allowance oo loo yaqaan RDA, ama qiimaha maalinlaha daily value. inta lagu taliyo ee cunto waxay kuu sheegaysaa inta nafaqo ee la doonayo in qof caafimaadaysan la doonayo inuu maalin kasta uu cuno. talada lagu soo jeediyey qofba qofka kale way ka duwan tahay oo waxay ku xiran tahay da'da, jinsiga iyo xaaladda uurka. qiimaha maalinlaha waxaa qofka u sheegtaa inta nafaqo ee cuntada la cuno ku jirta marka laga eego wadarta guud ee cuntada maalinlaha. waxaa lagu soo qoraa sida boqoleeyo oo waxay kaa caawinaysaa in cuntooyinka aad isku barbardhigto. tusaale ahaan, cereal ku jira 40% maalinlaha oo calcium ah waxay ku siinaysaa nafaqooyin ka badan cereal ay ku jirto 20% maalinlaha. waxaa muhiim in la xasuusto in cuntooyinkan kabka ah aan loogu dan lahayn in lagu daaweeyo ama cudurro looga hortago, oo ma ahan in mar walba lagu bedelo booskii cuntada caafimaadaysan. shirkadaha sameeya cuntada kabka kuma qasbana inay muujiyaan inay ammaan yihiin oo ay waxtar leeyihiin. cuntooyinka kabka ah qaarkood waxaa dhici karta inay leeyihiin caddayn ogolaansho oo lagu soo qoro, laakiin tan micnaheedu ma ahan inay yihiin cunto ammaan ah ama waxtar kuu leh midna. noqo macmiil caqli leh oo mar kastaaba la hadal takhtarkaaga ka hor inta aadan bilaabin cuntooyinka kabka. wadajir uga wada shaqaynaynaa si aan u dhisno qoysas fayo qaba
iyo adiga oo fayo qaba.